لله وإنا إليه راجعون halkan toddoba qof ayaa lagu weysan yahay raq iyo ruux rag iyo dumar ayayna isugu jireen waana meel markaasi ka tirsan deegaanada Galmudug waxa la sheegay in ay markaasi dafeen koox jin ah oo halkan fariisin u ah qofkii markaan halkan yimaada xitaa nafsadiisa ayaa qatar ku jirta si dhuumaalaysi ayaan meeshan ku imid inagoo adkaarta ku hayna waxaan rabaa inaan ka dabageeyo warbixinadii ugu dambeeyay arimahaasi ku saabsan marka hore muuqaalka la gare sina sheer gare oo la wadaag saaxiibadaada adigoo maadsan halkan oo markaa ku taala inta u dhaxaysa deegaanada Xananbuure iyo sidoo kale Tacaabud Waaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa loo yaqaanaa Naarkabooda waana xarunta jinka a'uudu bi kalimaatillaahi taama dad badan oo meeshan safaroy ku ahaa ayuu jinkan uu markaasi dafay ilaa iyo iminkana waa la ayaa raq iyo ruux meel ay dhigeen markaasi halkan dadku markay marayaan bisinka iyo adkaarta ay qabsadaan waxaana halis ah xitaa in markaasi dadka dhibaato xoog leh ay u geystaan kooxda markaasi jinka ah oo fariisin halkan waa ciidan reer guuraa ayaa deganaa goobtu waa cidlo waa ay ka carareen dadku waa ay ka hayaameen cabsi soo wajahday maadaama xoolihii uu jinku ka dhameeyay iyo sidoo kale dadka qaarkiis oo xitaa habeenadii markii la gaaro iyo sidoo kale maalcadeydii qayladhaan aan jiho lahayn maqlaya waana arrin dadku inta badan ay la yaabeen haddaba dad reer guuraa oo aanu kula kulannay inta aanu soo gaarin goobtan oo sida dhuumaalaysiga aanu ku nimaanin ayaa waxay noo sheegeen in xoolihii markaasi deegaankan joogay sida geela iyo sidoo kale ariga ay qaarkood markaasi ay waayeen oo ilaa iyo iminka raq iyo ruux ay leeyihiin xoolahaasi waxaana ay noo sheegeen in ay degan yihiin deegaankani dad ama qoomam aan loo jeedin oo ay ku sheegeen inay yihiin wax ay ugu yeereen jin oo dadka markaa halkan degan cabsi xoog leh ku abuurtay sidaas ayaana kaliftay inay isaga cararaan toddoba ruux ayaa markaasi halkan lagu weysan yahay oo rag iyo dumar isugu jirta baabuur ayay la socdeen waxaana ay ku wajahnaayeen dhinacaas iyo sidoo kale dalka Ethiopia maadaama gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo xuduud beenaad la leeyahay dalka Ethiopia safaratoy ay ahaayeen dadkaasi baabuurka ay dusha ka saarayeen waxaana dafay sida in loo sheegay koox jin ah oo meeshan fariisin u ah isbaara ayaa u taala sida ay dadka deegaanka noo sheegeen qofku markii uu halkan imaanayo ama safar uu yahay uma uu jeedo balse waa ay dafayaan ama waxyeelo markaasi ayay gaarsiinayaan jirkiisa oo xitaa waxa jirtay dad ay markaasi dhaawacyo gaarsiiyeen meelaha qaar waxa lagu arkayaa lafo duugoobay iyo sidoo kale timo markaasi baaba'ay oo markaasi dadku ay noo sheegeen in ay markaa ku tuhunsan yihiin dadkii halkan lagu waayay ee toddobada ruux ee rag iyo dumarka isugu jiray cabsi ayayna kugu abuuraysaa markaad soo dul istaagto waxaana markaasi inaga qudheena ay nagu abuurtay cabsi xoog leh oo si dhuumaalaysi ah ayaan muuqaalkan ku duubaynaa waxaana dadku ay ku sheegayaan marka aad halkan soo aadaysid oo aad tiraadid goobtaas ayaan ku safrayaa waa lagaaga digayaa waxa lagu leeyahay meeshaas xarunta jinka weeye oo fariisin ay u tahay oo isbaaro ayaa u taala ee ha aadin meeshan aad timaado ama aad soo marto adiga oo dhan akhrisan adkaarta ama quraanka ama kalaamka ilaahay oo aadan isxijaabin naftaada waa loo yaabaa oo halis ayaad ku jirtaa waxaan dadka safariga ah ee maraya inta u dhaxaysa Xananbuure iyo sidoo kale Caabud Waaq aan uga digaynaa inay markaasi halkan aysan soo marin haddii ay soo maraana ay adkaarta akhristaan si ay markaasi uga badbaadaan kooxda jinka ah ee fariisinka halkan markaa ku leh ee isbaarada dhigatay ilaahay ha ka badbaadiyo ayaanu leenahay dadka haddii muuqaalkan bilow ilaa dhammaad la socotana si sheer gala adigoo maadsan